kadib waxaa dhacday Layla waxaa guursaday nin la yiraahdo Wardi kadib markii aabaheeda ku qasbay in ay guursato ninka taasina waxay geeri ku noqotay Qays oo markii uu maqlayba saxarihii iyo buurihii ay la wareegteen xaaladiisa caafimaadna noqotay mid ay ka dadaaleen dhaqaatiirtu Qays aabihii ayaa maalin ugu yimid isaga oo god ku jira oo ku dhex hurda waxa uuna ka dalbaday in uu u raaco guriga iyo meeshii walaalihii ay joogeen Qays markii uu dib ugu laabtay gurigii aad ayaa loo canaantay isaga oo qof waliba ku dhahaya maxaad naftaad uga halaagaysaa gabar kale ma dunidan ka weyday isaga oo gabdhihii Carabta ugu quruxda badnaa loo soo bandhigayay laakiin arrinka wuu ka indhasaabtay Qays oo waa halka ay iskaga eg yihiin isaga iyo cilmi boodhari Qays waxa uu go'aansaday in uu dib ugu laabto riyada Qays ma uusan quusan wali maxaa yeelay wali Layla dunida waa ay joogtaa dayaxa way la daawataa xidigahna way la tirisaa sidaas oo ay tahay Qays dhibaatada way ku siyaaday afarta jiho dabeelo ayaa ugu yimaado wax uuna yiri isaga oo ka cabanaya Layla sida looga fogeeyay ayuu yiri dadkoo idil baa ii ka asturo ma adduunka oo dhan baa iga ka heelinayo indhihii isxiraan aragooda jeclaa ma arkay Layla ifka may joogaan ma ilaawi kareen labadaas ruux aad bay u adkaatay in ay kulmaan kaliya waxa wararka u kala qaadi jiray safarada u kala gooshaya Shaam iyo jasiiradda Carabta maalinba maalinta ka dambaysa Qays waxa uu ka sii baxay saaxada nolosha waxaana hareereeyay warwar walaac iyo walbahaar Laylana ma moogana saaxiibkeeda dhibaatada heysata habeenada ka mid ah ayaa jaariyadeedii loogu yeeri jiray Marjaan ayay waraaq ugu soo dhiibtay taas oo ka raadinaysa dooxooyinka wabiyada iyo lama degaanka allahayo muxuu waqtiga isbedelayaa shalayto Qays iyo Layla waxay ku ciyaari jireen banaanada iyo guryahooda xilliga ay caruurta ahaayeen maantana waxa u dhaxeeya wabiyadii murugada oo mid waliba dacarkiisa ayuu ka cabayaa hadday isku dayaan inay isku soo gudbaan waxa qaadaya mawjadaha bilaan xariista Marjaan wali way raadinaysaa ma aysan helin Qays waxa uu saarnaa buur dusheeda waxa uuna banaanka kore ka arkay humaag waxa uuna u qaatay Layla oo doonaysa hase yeeshee way u soo dhawaatay Marjaan markuu arkay aad ayuu u farxay jaariyadii Marjaan markaas ayuu ku yiri aaway xagee martay xaalkeeda sidee ayuu ahaa Layla markaas ayay waraaqadii u dhiibtay oo ku tiri Layla waxay ka baqaysaa in aad ku dhibaatootid jaceelkeeda waxa kale oo ay ku soo tiri hablaha dunida jooga maxaan kaaga dugannahay oo aad sidaan igu jecelaatay waraaqda Layla waxay ugu calaacalaysaa Qays iyada oo leh adiga ayaa xaq u leh inaad nolosha ila wadaagtid waxa aniga i guursaday nin aan naxariis lahayn oo indhaha igu guba waxaan nahay labo isnacab oo cawku wada caweeya markaas ayuu Qays xanaaqay oo sidatan yiri adduunyada carowdee casar liiqa joogtee ciirada ku xidhatee la isugu caroodee lamaanaha iscaanshafe ciil loogu aarsaday irkuba dhawaanahan daruuraha ma curiyo bada caari mooye ayn kala balowaa dayaxii caddaan waa xidigii cadceedsaday caawana habeenkii cidlo ma igu soo galay Laylana macawbay wardi kula cawaysaa Qays waxa ay ka guureen dhulkii murugada badnaa isaga oo la doonaya in uu sidaan dhaamo oo waxa ay aadeen magaalada sharafta badan ee Makka al-Mukarrama isaga oo Kacbada loogu soo duceynayo sidaas oo ay tahay Qays kama uusan bogsan dareenkii Layla oo xanuunka badneed maalin ayaa waxaa soo dulmaray shimbiro oo u jihaysan dhulkii ay Layla ku noolayd markaas ayuu isaga oo salaan u faraya sida tan yiri shimbiraya hooseeya duulaya samade soo dimaha dulmaraya siduu doona yeelay hadma meel siyaartaan daalayna sideedii tii aan sugayay qalbigayga siiyo salaan Layla iga gaarsii Layla maxaa u dambeeyay la soco qaybta saddexaad qisadii Layla iyo Qays ee xanuunka badneed